Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada cashirkii labaad. Cashirkii hore waxaa kusoo baranay qaabka loo dejiyo Android Studio iyo Java JDK looguna duubo kombiyuutarka. Cashirka maanta waxaa ku baranaynaa sida loo sameeyo sample Android project Hello World barnaamijyada ay dhahaan. Waxaan arkaynaa steebyada loo maro sida loo kiciyo weliba taleefankaaga adoo isticmaalayo iyo sida ugu xiri lahayd taleefankaaga. Okay, aan bilaabno. Si aan u bilaabno, marka hore soo kici Android Studio. Menu sidan oo kale ayaa kusoo muuqan doona oo Start New Android Studio Project, Open Existing Android Studio Project, Check Out, iyo menu kale. Okay. Si aad u sameyso project cusub, menu ugu horeeya dooro oo ay ku qoran tahay Start New Android Studio Project. Okay. Stepka xiga waxaad dooranaysaa nooca barnaamijkaagu aad u rabto. Anaga maadaama aan rabno barnaamij bilow ah oo tijaabo ah, waxaan dooranaynaa empty activity. Okay, empty activity doono kadib next leh. Stepka xiga waa project configuration. Project configuration marka hore barnaamijka magac u bixi. Anaga waxaan u bixinaynaa barnaamijkeena test app. Okay. Stepka ugu horeeya oo project configurationka barnaamijkaaga magac u bixi. Anaga waxaan u bixinaynaa test app. Package nameka waa wax gaar u ah developerka ama company ha ahaado ama shaqsi ha ahaado. Okay. Save locationka waa folderkii barnaamijka la dhigi lahaa. Meesha barnaamijka yaal barnaamijkeena folderku magaca ay faylashiisa iyo waxaas wuxuu dhigi doonaa folder barnaamijkeena ku magaca oo ku jiro sida gaar ahaan Android Studio Project oo test app lahaa. Okay, waa ka bedeli kartaa laakiin badanaa sidooda loo daayaa. Qaybta kale luqadda Android Studio laba luqadood ayaa barnaamij ku sameyn kartaa, Java ama Kotlin. Kotlin oo luqad cusub ah oo mar dhow lagu soo kordhiyay. Anaga Java ayaan isticmaalaynaa. qaybtan minimum API label. API labelka waxaa jira Android API iyo Android OS. OS telefoonada ayuu ku yimaadaa, laakiin API-ga waa wax developerka oo isticmaala si barnaamijyadooda u sameeyo. Classeska, application featureska, design tool, waxyaabaha oo markii barnaamijkiisa featurada oo rabo inuu yeesho si uu u sameeyo API level. Numberadan ayuu isticmaalaya. Hadda waxaa noo saaran API 19. sanad ka dambeeya API levelka oo sii kordha. Okay. Tusaale ahaan haddaa rabtid applicationkaaga featurada ugu dambeeyay inuu yeesho, waxaa isticmaalaysaa API ugu dambeeyay. API 29. Okay. Tusaale ahaan haddii API ugu dambeeyay ay isticmaashid, waxaa ogaataa inuu ku shaqeynayo telefoonadii inuusan ku shaqeynaynin telefoonadii hore. Kaliya wuxuu ku shaqeynayo telefoonada cusub. Marka boqolkiiba waa hal. Sababtoo ah boqolkii qof waxaa laga yaabaa hal qof inuu mobile cusub, mobileka sanadka soo baxay inuu wato. Okay. Ama haddaad rabto inuu programkaaga ku shaqeeyo telefoonadii hore, tusaale ahaan haddii Lollipop ama mid kasii fog API 16, API 17, API 19 meelahaas oo kale haddaad doorato, applicationkaaga wuxuu ku shaqeyn doonaa API-gaa dooratay iyo wixii ka dambeeyay. saas darteed dad badan ayaa abkaaga isticmaali kara. Marka sababtoo ah boqolkii qofood 99 ka mid ah waxay wataan telefoon hore. So maadaama aad dooratay API hore, barnaamijkaaga wuxuu ku shaqeyn doonaa laga soo bilaabo API-gaas ilaa iyo kuwa hadda ugu dambeeya ee imaaday ee cusub. Hadda marka mid gaar ah anaga ma rabno, midaan iska dooranaynaa waa tijaabo inuu noo kaco oo barnaamijka noo shaqeeya ayaa muhiim ah. Marka 19 aanan dooranaynaa, finish ayaan leenahay.
markaad finish dhahda kadib project loading ayuu sameynayaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay waxaad u baahan doontaa internetkii uu kugu soo dago Gradle-ka hadduu hore kugu jiray ama uu kuu dago loadingka uu dhamaado wax progress ah qaybtan hoose aysan ka muuqan projectii wuu abuurmay oo waa diyaar. markan waxaan baranaynaa qaabka loo kiciyo barnaamijka. si aad u kiciso barnaamijka, top menu calaamada startka oo cagaaran, qayb drop downka oo dhinaca bidix ka xigta haddii aad furto waxaa arkaysaa device-yada ku xiran computerkaaga ama emulator-ka, waxyaabaha emulatorada Android Studio uu leeyahay oo barnaamijkaaga aad ku kicin kartid. device-yada waa laba midkood, ama emulator ama mobile device-kaaga. emulator-kaaga waxaa ka sahlan mobile-kaaga. si aad u kiciso mobile-kaaga, marka hore ku xiriir mobile-kaaga computer-ka adoo isticmaalaya USB cable. taleefankaaga waxa u baahan yahay in laga dhigo developer mode. waxaa ogolaataa developer mode inaad ka dhigtid marka hore, USB debugging-kana aad furto. okay, taleefankaaga markaa ku xirto waxaad tagtaa qaybta settingka markaad tagto waxaa qaybta hoos meesha ugu hooseyso waxaa arkaysaa about device hadaad ku dhufato menuga qaybta software information kusii dhufo. software information markaa ku dhufato building numberka hadaad 3 jeer ama ilaa 5 jeer aad ku dhufato waxaa kuu furmaya developer mode enabled ama on oo kuu noqonaa. aniga hadda wuxuu leeyahay already has been enabled. okay, daas soo laabato about device-ka waxaa arkaysaa menu kale oo ka hooseeya oo developer option ay qoran tahay. Android Studio inta waxaa kaaga muuqdo in waxaan emulator ahayn inuusan isoo qabsan. marka waxaan rabaa settingkaas markaan bedelo qaybtan Android Studio waxaa isoo qaban doonaa taleefankayga. okay, developer option-ka gale. developer option markaa geshid hadda waa off, on ka dhigay. developer uu ku weydiinaa okay aa leedahay. markaa on ka dhigtid qaybtan hoose USB debugging-ka iyadana on ka dhigay. on markaa ka dhigtid mobile-kaaga waa isjara mar kale wuu kusoo xirmaa. markuu kusoo xirmo Android Studio-haaga wuxuu kusoo qaban doonaa mobile-kaaga noociisa. okay, kadib si sahlan calaamada startka haddaad taagtid barnaamijka buildingkiisa iyo loadingkiisa oo sameynaa, application installation oo sameynaa. waxaa si toos ah uga arkay taleefankaaga. installation hadda wadaa qaybtan hoose sida kaaga muuqato. installation successful. okay, test application barnaamijka oo isoo kacay hello world. building installation kadib barnaamijkeena wuu kacay. sidaas ayuu u kacay barnaamijkii. cashirka xiga hadduu ilaahay idmo waxaan ku arki doonaa dulmar guud waxyaabaha uu ka kooban yahay projecti, faylashiisa, howlaha ay kala qabtaan iyo faylasha qaar meelaha ay yeelaan iyo waxay qaabilsan yihiin. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadeed.